hasoomin maalinta carafo sabti ayay ku soo aareysaa sabtina in la soomo nabiga ayaa xarimay maxaa la sameeynaya salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wuxuu yiri maalinta carafo hasoomin maxaa yeelay waxay waafaqday yawm sabti nabiga sallallahu alayhi wasallam wuu reebay oo diiday in maalinta sabtida la soomo maalinta carafo waad soomaysaa xadiidka nabiga sallallahu alayhi wasallam oo ku leeyahay maalinta sabtida lama soomi karo waa xadiid daciif ah bal baadilun ghayr sahih waa xadiid aan saxayn oo baadil ah weeyaan maalinta sabtida waad soomaysaa yaanan soonkaada tashwiish lagaga furin yaanan soonkaada maalinta sagaalaadka aad soomi lahayd yaanan shaki lagaga gelinin waad soomaysaa maalinta carafa sabtida ka soomi kartaa maxaa yeelay ibnu baazi wuxuu yiraahday wala xaraja an yasuuma yawm sabt mufradan wax dambi amalaha in aad soonto maalinta sabtida kaliyeed aw maca aljumcati aw maca alahad ama jumca la soon ama ahad bala soone wax dhib amalahan ama kaligeed ba soon maalinta sabtida hadii aad soonto wax dambi amalahan maxaa yeelay waa waqti muayyin ah oo la og yahay oo ma aragtaa sanadkii hal mar ku soo marto maalinta carafa sabtida kaligeed aad soomi kartaa waa maalin ilaahay subxaanahu wa ta'ala ikmaalu diin oo sameeyay oo ilaahay subxaanahu diintii kamilay oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala diintiisa weyneeyay ilaahay subxaanahu wa ta'ala adoomadiisa u sheegay in maanta ay diintooda ay taam noqotay nin kacab la yiraahdo ayaa Umar u yimaaday markaas wuxuu yiraahday Umarow ayuu yiraahday law nazalat ma'shar al-yahuud hadhihi al-aaya hadii ay kusoo dagi lahayd yahuud la kulankeeda aayadan hadii kusoo dagi lahayd la taqadna dalika al-yawm ciidan maalin walba waxaan ka dhiga lahayn ama maalinta waxaan ka dhiga lahayn maalin inoo qaas oo ciid ah waa maalinta carafa weeyaan waan ka soo hadli doonaa fiidiyada kale aan soo hadli doonaa